gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa maanta waxa uu tababar u soo xiray qaar ka mid ah saxafiyiinta Somaliland ka howlgala gaar ahaan gobolka Gabiley. Faahfaahin arrintaasi la xidhiidhana waxa inoo haya wariyaheena Maxamed Juba. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier oo ay weheliyaan hay'adda IPRT ayaa maanta tababar u qabtay saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada madaxda gobolka Gabiley. sidoo kalena waxaa tababarkani qayb ka ahaa isla markaasina ka soo qayb galay maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Gabiley xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee Gabiley. tababarkaasi iyo ujeedooyinkiisa ayaa ugu horreynba waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socday hay'adda IPRT مسؤولينtaasi hadaladoodii kamid ahaa kulankan maanta aynu halkan u fadhinaa wuxuu daaran yahay sidii isfaham loo dhaxdhalin lahaa ama wada shaqayn qof walba xeerka halku kaga aadan yahay u qaban lahaa golayaasha deegaanka ama golaha deegaanka ee Gabiley iyo suxufiyiinta gobolka Gabiley. runtii farxad bay soo jahan loo tahay in maanta suxufiyiinta gobolka oo dhan aan wada fadhino oo aan ka wada hadlayno runtii sidii mihnada saxaafadda ay ugu adeegi lahaayeen si fiican waxa uu sida maxamed sheegay kulankeenu wuxuu daaran yahay horta in way isku soo dhawaansho saxaafadda iyo mas'uuliyiinta in isku yimaadaan oo wax isku yeedsadaan halkan maanta waxaan horta isu keenay anagoo qolada soo shaqeyn dhow leh hay'adda IPRT oo markaa gacan ka helisa hay'adaha IMS iyo FOCHO sidoo kale shaqada gacanta ku hayna ama waa shaqo aan runtii gacan iyo dabirtaan aan nahay bahda ururka saxafiyiinta Somaliland ee matala waxaan filayaa idinku filan 10 qaadateen 10-dana waxay u baahan yihiin aqoon kororsi inaad idinku samaysaan halka taagantihiin aad qoruga kacdaan inamada saxafiyiinta ugu hadnaqayaan sida quruxda badan leh ee iyagu iskood u heshiiyeen inta la soo dhaxgeliyay heshiiskaasina gobolka Gabiley wuxuu tarayaa workshop ama seminar aad muhiim ah oo macallinka bixinayna runtii aad academic ah wax badan ay ka faa'iideysadeen sidoo kale arrintan waxay soo afjartay khilaaf suxufiyiinta gobolka ka jiray waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan muhiimka ah ee noo dhacay in xagga traininada loo sii wado suxufiyiinta gobolka oo waxaan u aragnaa in arrintan aad macquul u tahay welibana muhiim tahay welibana ayna tii horeysan noqon ay noqoto furo ah oo welibana xilliyo badan iyo time badan oo kalena aynu isku soo noqono wariyaasha iyo mas'uuliyiinta halkan fadhidaana aanu noqono kuwa weeleeya oo dhagoogu furan yihiin weyn bay noo tahay maanta in halkan uu nala joogo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soldier isagoo oo inoogu yimid dana arrimaha saxaafadda ah taana waxaan filayaa in markii la dooday ee la wada hadlay wixii khilaafaad ahaa ee jiray marwii dhexdii ahayd saxaafadda la isu yeedmalmaliyeen laga bogsaday maantana meel isugu timaadeen taas baa gobolkana u dana saxaafaddana u dana annaguna waxaan jecelahay had iyo jeer inay saxaafaddu ahaato mid midaysan geesta kalena saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada madaxda gobolka Gabiley ayaa gabi ahaanba maanta soo gabagabeeyay khilaaf in muddo aaba ka dhex taagnaa saxafiyiinta madaxa bannaan ee Gabiley iyagoo halkaasi ku soo bandhigay sawirro muujinaya sida ay gacmaha isu haystaan iyo wadajirkooda ay maanta taagan yihiin sida aan arrimaha ku dhameynayna waxa weeyaan in urur loo sameeyay yahay oo saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada madaxda gobolka Gabiley ay yihiin hogaankii hore uu sidii u jiro hogaankii hore xilmi maxamed jaamac gudoomiyaha ururkani maxamed xasan sheekh maxamed oo aniga oo jubbaha deegaanka ururkani iyo Mustafa Nuux Ibrahim oo ah isla xogeeyaha ururka waxayna nahay uliyadir mid baynu nahay wax alla wax iskuubaysiya ama isku haysi jir karaan ma jirtaan ilaa waa maxamed xasan sheekh maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Kalson TV gobolka cagaaran